Conversation. Wada sheekaysi. An interesting conversation wada sheekaysi xiisa leh about courtship ku saabsan shukaansiga. Courtship. A boy, wiil, and a girl iyo gabar chatting oo wada sheekaysanayo oo dating ama shukaansanayo. Let me interrogate you. Iyo golow inaan ku su'aalo an important question, su'aal muhiim ah about ku saabsan courtship shukaansiga. So do you mind? Sida awgeed maxaad ka qabtaa if I ask you haddii aan ku weydiiyo that question su'aashaasi? I don't mind. Waxba kama qabo. Release your question soo daa su'aashaada. But don't ask me laakiin ha I weydiin a silly question su'aalul axmaq ama su'aal doqomeed. What is courtship? Waa maxay shukaansiga? Sorry, waan ka xumahay. I have not reached ma aanan gaarin the age da'da of marriage ee guurka yet weli. And I am not interested mana xiiseeyo in talking ka hadalka about ku saabsan courtship shukaansiga. Because maxaa yeelay boys wiilashu have accustomed waxay caadaysteen to deceive inay qiyaamaan gaalis gabdhaha nowadays maalmahan. Don't act ha u dhaqmin like sida Allah's dhoocil who is not mature taasoo aanan qaangaarin. It appears on waxay ka muuqataa you face wejigaaga that you are over 20 years inaad ka weyn tahay 20 sano. That you are over 20 inaad ka weyn tahay 20. What a wonderful idea. Maxay fikrad la yaab leh tahay to see you aan kugu arko saying adigoo oranayo ama dhahayo the childish speech hadalla caruureedka in front of me horteyda. Don't you fear miyaadan ka baqaynin shame ceeb and prestige loss iyo sharaf dhac? It's my first time waqtigii ugu horeeyo to see an arko a formless girl gabar qaablay ah who is parking up the wrong tree kaasoo ka qaylinayso geedka qaldan. Speak u hadal as a girlhood si gabarnimo ah. This is an interminable boring speech. Kani waa hadal aan dhammaad lahayn oo caajis ah. And I don't have time umana hayo waqti to spark aan ku shukaansado rustic ladies kurayada reer miyiga ama reer baadiyaha like you adoo kale ah. Why are you speaking? Maxaad uga hadlaysaa foolishly si doqonnimo ah and comically iyo si shactira ah?